الرحمن الرحيم إذا لهانتين بداوضة الميل كستو عن داونيسان waxaad ku soo dhawaataan wararkii telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland warkana waxa idin la socodsiin doona anigoo Jamaal Ahmed Naasira wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo socdaal shaqo ku maraya gobolada bariga ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Caynabo halkaasi oo wasiirku bulshada uga waramay ujeedada socdaalkiisa isla marhaantana uu khudbad diiniye u jeediyay dadweynahaasi sida warkan inoogu soo diray wariye Jaamac Bood Cade wasiirka diinta iyo awqaafta dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa socdaal shaqo ku soo gaaray magaalada Caynabo ee xarunta gobolka Saraar waxaana wasiirka meel 20 kiiloomitir dhanka bari ka xigta magaalada Caynabo kaga hortagay dadweyne tiro badan oo qayb ka ahaayeen culimada diinta kala duwan ee ku dhaqan magaalada Caynabo kuwaas oo hogaaminayeen kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Ibrahim Jaamac Maxamed suduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolkan mudane Jaamac Axmed Nuux iyo mas'uuliyiin kale waxaana wasiirka diinta iyo awqaafta loo soo galbiyay dhanka iyo hoteelka caalamiga ah ee Caynabo iyadoo wasiirku halkaasi kala hadlay dadweynihii halkaasi ku soo dhaweeyay ugu horeyn bana kusimaha gudoomiyaha gobolka iyo suduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saraar ayaa wasiirka uga mahadnaqay socdaalkan uu ku yimid magaalada Caynabo ee xarunta gobolka Saraar diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed mudane wasiir waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolkan Saraar caawana waxaan kugu soo dhaweynaynaa inaad cilmigaagii iyo xoogaa muxaadarada nooga soo jeediso gobolka wafdigan sharafta iyo qiimaha badan ee hogaaminaya wasiirka diinta iyo awqaafta sacaadatul wasiir ku soo dhawow gobolka Saraar oo qalbi furan kugu soo dhaweynaya iyo niyad furan diyaarna ku ah inay wax allaale wixii xagga diinta iyo xagga horumarka iyo xagga wanaaga ay diyaar kala shaqeeyaan sidoo kalena wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta ballaaran ee lagu sameeyay magaalada Caynabo isagoo tilmaamay socdaalkan uu ku yimid xarunta gobolka Saraar ee Caynabo ay qayb ka tahay kormeer ballaaran oo ku marayo qaybo kamida gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland waxa runtii farxad mar labaad inaan ku soo noqono marka si jiidnay gaar ahaan dadweynaha inaan kelmadiisii nidhaahno dabdaaranka ahayd waxaan dareemayaa dadka reer Caynabo runtii inay dad aad iyo aad ugu helan yihiin diinta islaamka iyo diinta oo runtii dadaalka u hayaan iyo xafiisyo kala duwan ee runtii iyagoo isku tashanaya ay ka fureen gaar ahaan qaybta maartay wanaag farista xubno reebista oo inay xoojinaysa hawlihii ay wasaaraddu waday waan ku mahadsantahay soo dhaweynta qiimaha iyo qadarinta badan ee aan noo sameeyay mar walba la taagantiin waxa la jazaakumullahu khayr wasiirka diinta iyo awqaafta ayaa la filayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Caynabo inuu kulamo iyo maxaadirooyin diiniya uu qabto qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Caynabo Jaamac Bood Cade TV qaranka Soomaaliland Caynabo agaasimaha guud ee wasaaradda tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee wasaaradda waxbarashada mudane Abiib Axmed Cali ayaa maanta kormeer ku gaalabixiyay dugsiyada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ka wada imtixaanaadka shahaadiga agaasimaha guud ee wasaaradda tacliinta sare mudane Abiib Axmed Cali oo kormeer ku tagay dugsiga sare Timacade ayaa halkaas waxa ku booqday wiil yar oo lugta wax ku qoray isla markaasina mucjiso oo guud ahaan ba imtixaanaadka shahaadiga Soomaaliland markii ugu horeysay u fadhiistay ardaygaas oo muddadii 8 sanaad ee wax baranayay ku baranayay cagta oo abuurka ee Ilaahay aan u sameyn wax gacmaha agaasimaha guud oo ardaygaasi maanta booqday ayaa waxa ka hadaladiisii kamid ahaa ku jira kormeer muhiim imtixaanaadka gobolka maanta igu horeysa aad baan ugu farxay markaan arkay cilmiga gacanta lugaha ku qoraya waxaanay muujinaysaa kartida dheeraadka u muujiyay wasaaradahaana cilmi anigoo fariinta wasiirka loo gudbin doonaa wasiirkayga Samir Cabdaadan in wixii aan u qaban karno kaalina inaan u fahmo waxaan ku dardaarayaa gudoomiyahana in ardayga noocaas oo kale ah saa u dadaalaya baahiyaha gaarka qaba in ay wasaaradda la soo socodsiiyaan wiilkan yar ee isaguna maanta imtixaanaadka u fadhiisanayay gacmaha la ayaa sidoo kale dareenkiisa ka warbixiyay dareenkaygu aad u fiican yahay waxaan arday ka soo gudbay maanta dugsiga hoose iyo dhexe oo u gudbay
oo higsanaya ilaa heer jaamacadeed inuu gaadho marka sidaad aragtaan waxaan ahay ardaygaasi labadii gacmood aan lahayn haddana ilaahay amarkiisa u fududeeyey lugaha inuu wax ku qoro ku intifaacsado uu cuntada ku cuno markaa taasi waa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa isagoo maamulaha sare dugsiga sare ee Timacadee Maxamed Maxamuud Saleebaan Aws isna shacbiga reer Soomaaliland ku ballan qaaday ugu baaqay inay kaalmeeyaan guud ahaanba wiilkan yari isla markaasina inta uu ku jiro dugsiga sare ee waxbarashadiisa sidoo kale agaasimaha guud ee tacliinta sare Abiib Axmed Cali waxa uu kormeer ku maray dugsiyada Wajaale iyo Arabsiyo oo guud ahaanba soo indheeyay iyadoo halkaasina ay ka warbixiyeen macallimiintii iyo mas'uuliyiintii kala duwan ee kormeerkaasi uu ku marayay waa Nimcaan Dheeg Ibraahim TV qaranka Gabiley agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka qayb galay ciyaar kubadda kolayga ah oo lagu qabtay garoonka Timacadee ee magaalada Hargeysa taas oo lagu xusaayay Xasan Xoog oo sanadihii 80-aadkii u ciyaari jiray gobolka agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dalxiiska Somaliland ayaa ka qayb galay tartan lagu qabtay garoonka kubadda kolayga ee Timacadee magaalada Hargeysa ciyaartani oo lagu xuseeyay ciyaaryahan Xasan Xoog oo waqtiyadii 80-aadkii u ciyaari jiray gobolka Murudijeex munaasabadani ciyaarta oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha xiriirka Olombikada Somaliland la taliyaha wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo mas'uuliyiin kale oo ah dhinaca sportska ugu horreynna waxaana labadii kooxood ee ku kala ciyaarayay Maxamed Cali Ubsiye iyo magaca Xasan Xoog ay garoonkaasi ku soo bandhigeen ciyaar meeqaamkeedu aad u sareeyo waxaana halkaasi ku guuleystay kooxdii ku ciyaaraysay magaca Xasan Xoog oo keensatay 48 dhibcood halka kooxdii kalena ay keensatay 40 dhibcood agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha ayaa halkaasi ku gudoonsiyay koobkii hadaladiisina waxa kamid ahaa koobkan ujeedadiisu ay tahay koob lagu dhiirigelinayo dhalinyarada oo uu soo abaabulay Xasan Maxamed Xoore Xasan Xoog Somaliland bacaanka ka ahaa xagga kubadda kolayga guulo badan runtii u horseed oo isaga iyo rag kale ay kamid kaayeen ka gaadhay Xasan waxaynu aad iyo aad ugu amaanaynaa kaalintiisii ciyaartoynimo ee firfircoonayd waxa kale inuu aad ugu amaanaynaa kaalinta uu imika iyo marka horeba ku jiray ee community-ga Somaliland meel uu joogaba uu kala qayb qaadanayo horumarka wadanka iyo tan uu imika ku daba socday uu doonayay inuu bahdiisii iyo dadkii ay isku fiilka ahaayeen runtii uu dareenkiisii la wadaago markuu yimiba waxa weeye xafiisku noogu yimi wasaaraddu soo eegay dhalinyaradii buu tagay garoomadii buu tagay aad iyo aad baan runtii Xasan ugu mahadnaqaynaa uguna amaanaynaa kaalinta kulan ku saabsan dadejinta nidaamka maamul ee hay'adaha dawliga ah iyo siyaabaha loola dagaalamo lunsiga hantida qaran ayaa lagu qabtay magaalada Caynabo sida warkan inoogu soo dirayo mar kale wariye Jaamac Boodacade kulankan oo ka qabsoomay hoolka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Saraar ayaa waxa soo qaban qaaday komishanka heer qaran maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana ka soo qayb galay maamulka heer gobol heer degmo isuduwayaasha iyo madaxyada xafiisyada dawladda ee ka howlgala magaalada Caynabo ee xarunta gobolka Saraar kulankan ujeedadiisu ahayd sidii xafiisyada dawladda lagu sameyn lahaa heer maamul dadajina ayaa waxa ugu horreynba ka hadlay Mahad Cali Gabayxadi oo agaasinka wacyigelinta ee guddiga heer qaran ee maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Somaliland waxaanu ka xog waramay ujeedada kulankan isagoo sheegay inaanay kulankan ahayn markii ugu horeysay ee lagu qabto gudaha magaalada Caynaba kulankeedu ku gaaray yahay laba arrimood oo tawraysa tahay maanta sunnimay ah maadadintina marka kulankeedu inuu ku baaraanaya walaal tahay in xuquuqan aan soo qaadano dhammaan madaxda saraakiisha dawladda wasaaradda wakiilka gobolka idinkan laga rabaa inaad maskaxda fuujisaan wixii ka dhiman wixii gobolka ka dhiman wixii wasaaradda ka dhiman aad ka sheegtaan si anaguna aan wasiiradii ama wasaaradii xarunta joogay aan ugu gudbino una daba galo kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Ibrahim Jaamac Maxamed taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Gaashaale Axmed Taahir maayirka magaalada Caynaba Axmed Qani Cabdi Yuusuf gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka Saraar Sheekh Saalax Xasan iyo xubno kale oo doora oo kulankaasi ka hadlay ayaa dhamaantoodba si isku mid ah u soo dhaweeyay kulankan lagaga hadlayo maamul dadajinta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyagoo tilmaamay in kulankan ahaa mid si weyn loogu baahnaa waxaan maraynayaa maamul dadajinta iyo wax loo baahan yahay
in maamulku meel walba uu tago halkaa waxaa ku yaala laalusqaata waa naarquuti waa dhab qofka laaluuska qaata waa qof naar qaatay si fiican bay shaqada suga socotaa kulle intaan ogahay maxkamaddu dee si fiican bay shaqaysaa boliiska waan wada shaqaynaa asluubta waan wada shaqaynaa si fiican bay dhinaca cadaaladda iyo dee nabadgelyadu runtii meel wanaagsan bay maraysaa waan ku mahadsantihiin qaabka laga soo agaarsanteen iyo sida wanaagsan ee aad maaragtay usoo qaban qaabiseen midda kale waxa weeye laalushaqaate horta diinteena aad bay u hadashay shuruucda weliba aan ku shaqaynaa aad bay u hadlaan marka waxaan aad iyo aad ku hambalyeelayaa qaabkan aad usoo agaarsateen iyo kulanka wanaagsan aad noo qabateen midna isu sheegayno musuqmaasuqu lacag la xado maaha ilaa iyo mas-uuliyaddaada sidii xilkaad hayso oo dhan ayaad xilkaa saaraya waa musuqmaasuqu waa inaad waxba u kaleexan waa inaad hanti badeed culul oo xadin waa inaad qabyaalad gelin waa inaad ficil qaldaba samayn waa markii saddexaad ee komishanka heer qaran ee maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Somaliland ay kulamo noocan oo kale ay ka qabtaan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar jaamac boodacade TV-ga qaranka Somaliland Caynaba degmada Beledhig oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa waxaa si habsami ah uga socda imtixaankii shahaadiga ahaa iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ay degmadaasi imtixaan u fadhiistaan ardayda fasalada afraad ee dugsiyada sare haddaba war amuurtaasi ku saabsan waxaa degmada Beledhig nooga soo diray wariyahayaga Idris Dabshid iyadoo ay degmada Beledhig tahay markii ugu horeysay ay ka baxayaan arday ah form 4 isla markaasina ay ku tilmaameen shacab weynaha ku dhaqan degmada Beledhig inay tahay horumarka baaxadda leh uu ku talaabsanayo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamed Silaayo ayaa waxa ka warbixiyay ugu horeyn maayarka degmada Beledhig bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay waa mahadle halkan maanta lagu qabanayaa amaadkii dugsiyada sare ee degmada iyo eedka lagu qabanayaa degmada Beledhig iyagoo isugu yimaadeen degmada gudaheeda sida magaalooyinka kale ee dhagax dheer Garyana oo kale aad baan u soo dhaweynaynaa qolada imtixaamaadka u soo dhaweyn lahayd tuulooyinka dibadda ka yimid waxaa lu mahad celinayaa booliska qaranka oo isagu heegan ku aasi u xilkiisa waxaa lu mahad celinayaa TV-ga qaranka oo isna halkaa noogu yimi oo u soo kacay iska ogaada xaaladda dhabta iyo sida wax u soconayaan ayaan mahad celinayaa dhammaan waalidiinta waan mahad celinayaa intaas waa mahad celintii ardaydu way mahadsan yihiin ardayda maanta form 4 eedan waa markii ugu horeysay ka baxay dugsiga form 4 45 arday iyo 7 eeda 45 arday oo eeda iyo 7 ah dugsi sare sugeyn 250 ayaa fadhiyo goobtan degmada gudaheeda degmadu waxay ka kooban tahay 3 goobood waxa lagu kala gelayaa Dhoqoshay shan shacade iyo Beledhig goobta shan shacade waxa ku galaysaa 4 dugsi ayaa ku galaya oo ah heere dabaqabad shan shacade laftiisa Maxamed Ugaas iyo war Ibraan anigoo maamulaha dugsiga saddexeen riyalay waxaan ugu hambalyeeyaa ardayda gashay halkan ku gashay imtixaanka maalintii saddexaad maraysa usbuucan imtixaanka uu socdo waxa weeye waxa marka ardayda la isku keeno wax badan baa ka faa'iido badan bay leedahay ardaydu oo isbarato oo aan hore isu aqoon oo dugsiyada kale isku barata ayaa faa'iidada ugu badan ay tahay waxaan ku jeclaynayaa in ardaydaasi ay guul ka gaaraan imtixaanka ka gaaraan oo aad iyo aad si wanaagsan ugu socda imtixaanku waa si wanaagsan mid soo dhaweyntaan magaalada aad noo soo dhaweysana aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaya ee magaalada Beledhig aad loogu soo dhaweeyay gacmo furan loogu soo dhaweeyay anigoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe dhagax dheer waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo fasalada afraad ee dugsiyada sare oo imtixaankii maalintii saddexaad ku jira iyadoo aan u rajaynayo guul insha Allah aan mahad u dirayaa wasiiradda 7 arday halkooda yani imtixaankooda uu soo rartay ee kaga warhaysa halkooda waxa kale oo aan aad uga helay oo ayagana aan mahad u dirayaa degmadan Beledhig intaasoo arday waa markii ugu horeysay ee aan arko arday ka timi degmooyinka Beledhig ku xeeran oo meel wax ku wada cunaysa oo meel wada seexaysa oo
يعني الموضوعي gurigoodii oo kale ay joogaan idris maxamed dabshid TV-ga qaranka degmada Beledhig wararka ka imanaya degmada gar adag oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaa kamid ah kalfadhigii lixaad ee golaha deegaanka degmada Garadag ayaa saakay bishii taas 21 bisha lixaad si rasmi uga furmay howlka dowladda hoose ee degmada Garadag halkaas oo ka soo xaadireen 9 xildhibaan isla markaana uu shirgudoominayo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Garadag ahna maayirka degmada Garadag Faarax Aadan Ciise markaa xogeyaha fulinta dowladda hoose ee degmada Garadag Raasmaaciid Oogi uu qaybiyay xildhibaanada qodobada iyo ajandaha ay kaga doonayeen kalfadhigan ayaa saaka ku bilaabay jawi degan fadhigan oo qaybtiisa dambe saxaafadu darajoogka ayaa ka hor waxaa loogu warbixiyay maayirka degmada Garadag xogeyaha fulinta dowladda hoose qodobada iyo ajandaha ay kaga doonayeen xildhibaanada hadalladooda waxaa ka mid ah sida maanta way bishu tahay 22 bisha lixaad 2014 waxaa noo furmaya kalfadhigii lixaad ee golaha deegaanka degmada Garadag waxaan bilaaban doonaa ajandihii kalfadhigeena oo hore loo qaybiyay wixii si dambe xildhibaanadii aan helinay heli doonaan bishii ugu dambeysay degmada Garadag ay ku jirto koronto la'aan ayaa kalfadhigan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Garadag laga sugayaa in ay ka soo baxaan qodobo ay wax kaga qabanayaan koronto la'aanta ka jirta degmada Garadag isla markaana ay kor u qaadayaan beecda iyo jidadka degmada Garadag waa Madar Sare TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada halkaad warkaasi kala socotaan waa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland stuudiyihiisa magaalada Hargeysa magaalada Baghdad ee xarunta wadankaasi Ciraaq ayaa waxa ay soo taraya walaaca laga qabo sunniyiinta jihaadoonka ah ee ISIS oo kaabiga u saaran inay qabsadaan magaaladaasi haddaba warkan iyo waliba warar kale oo ku saabsan amuuraha dibadda waxaa noo haya wariyahayaga Jimcaale Cali Ibrahim magaalada Baghdad waxa uu shaki weyn ka jira sida uu u socdo dagaalka ay dawladdu kula jirto jabhadda islaamiga ee Daesh sunniyiinta jihaadoonka ah ayaa guul ka gaaray dagaalka gudaha dalkaas Ciraaq waxayna qabsadeen marin muhiim ah oo ku yaala xuduudda uu dalkaasi la wadaago dalka Suuriya waxayna ku siisiqayaan magaalada Baghdad iyaga oo sii maraya dooxada Yufraad sawirada soo baxaya ayaa muujinaya in jabhadda islaamiga ah ee Daesh ay tababar iyo hub ahaanba ay ka wanaagsan tahay isla markaana ka khibrad roon tahay ciidamada dawladdaas Ciraaq jabhadda Daesh ayaa sameysatay goobo qarsoodi ah oo intooda badan ku yaala gudaha dalkaasi Suuriya waxaana Mareykanka ku adkaan doonta inuu si wax ku ool ah u duqeeyo goobahaasi Mareykanka ayaa 18 bilood ee la soo dhaafay ka walwalsanaa jabhadda Daesh balse waxa lagu soo waramay in howlgalada uu dusha kala socdeen labadii toddobaad ee la soo dhaafay dhinaca kale ciidamada Ciraaq ayaa 2 toddobaad ka hor waxa ka dhamaaday gantaala uu Mareykanku siiyay ee loo yaqaan Hellfire waxayna dawladda Ciraaq sheegtay in Mareykanka uu ka cagajiidayo in uu gantaalada ka bedelo maadaama ay Ciraaq leedahay oo kaliya 2 diyaaradood oo gemi kara gantaaladaas dalka Suuriya heshiis xabad joojin ah ayaa laga gaaray xerada go'doosan ee Yarmouk ee ku taala caasimadda Dimashq heshiiskani ayaa la filayaa inuu yareeyo dhibaatada haysata kumanaanka qof ee ku xaniban xeradaasi xerada Yarmouk ayaa noqotay goob astaan u ah dhibaatada ka taagan dalkaasi Suuriya waxa xerada muddo sanad ku dhow ku go'doonsan dad tiradoodu lagu qiyaasay 18,000 oo qof kuwaas oo ay isu biirsadeen nolol xumo iyo duqeyn joogto ah waxa xerada ku yar cunada biyaha iyo dawada nuqulka heshiiska ayaa dhigaya in xayiraadda laga qaado xerada hubka culusna laga saaro isla markaana adeegyada aasaasiga ah dib loogu hirgeliyo xabad joojin hore looga gaaray xerada ayaa burburtay waxay noqonaysaa guul muhiim ah haddii ay dhinacyada oo dhami ka dhigaan xerada Yarmouk mid dagaalka ka caagan oo nabad ah intaasna daawadayaal waxaan ku soo afmeeraynaa war wixii aan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba aanu idinka haynay warkan iyo warar kale oo faahfaahsanba waxaad ku daawan doontaan baahimahayaga dambe ee soo socda intaasi ka horeysa anigoo Jamaal Axmed Naasiri waxaan idinku dhaafayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh